dib ma ku qabtaa nabra soo noqdo mase leedahay inuu wajigaada leeyahay xasaasiyad iyo cuncun mase leedahay haar aan dhammaan mase leedahay wajigaada dulduleel maanta xalkooda ayaan idiin wadaa bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idi salaamay inta ku xiran janalka karin iyo qurxin fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatid janalka karin qurxin subscribe dhe beelkana oon ka dhiga maadaama aan idin faa'iideynayno aad ka faa'iideysanaysiin waxyaalaha isqurxinta gabdho badanna ay ka faa'iideen please like fara badan saara oo like-ta u badiya subscribe-na dheh haddii aad ku cusub tahay halkan waxaan ku haystaa sida ujeed 3 shay oo kala duwan kaas cagaarka ah ama madowga u yara eg waxaa waaye mint leaf ama nacnac sida u taqaanid waa mint leaf la qalajiyay kadibna la shiiday way ku jirtaa janalkayga anigoo isticmaalayo oo shiidayo maxaa kaleetoon haystaa shumburo aydan waa kaa sidaas u egtaa waa shumburada caadiga isticmaalno waa digirta shumburta la dhaho oo shiidan aydan aniga waxaan jeclahay inaan aniga shiito oon si dabiici ah u isticmaalo nacnaaca ayaa idi tusaaya sida uu egyahay nacnaaca sidaan ayuu egyahay waa sawirka kor ka muuqdo fiiri videoga qaybtiisa kore waa sawirkaas kor ka muuqdo ayuu nacnaaca u egyahay kadibna maxaa kaleetoon haystaa aloe vera ama dacar oo jeel ah ayaa haystaa saddexdaas ayaa rabaa inaa isku isticmaalo maanta saddexdaa markii aad isku isticmaashid maasha allah hadduu wajigaada ahayd qofka mar walba nabraha kusoo noqdaan waxa leedahay bye bye iyo macsalaamo nabraha aad ayuu u daaweysaa waxa kaleeto oo maxaa inta daaweysaa dulduleelada wajiga waxa kaleeto daaweysaa haarta waxa kaleeto aad iyo aad uga qayb qaadataa hurka wajiga haddii wajiga ku huraayo nabra leedahay mar walba xasaasiyad wixii aamrista cuncun aa ka qaadid haddaba waxaan ku leeyahay maanta intaa isticmaal waa haysataa wixii aa isticmaal lahayd aana isku qurxin lahayd weliba si dabiiciya fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay ee janalka aad soo booqatid karin iyo qurxin subscribe dheh oo beelka oon ka dhiga insha allah oo yaan lagaaga hormarin oo yaan lagaa badinin waxyaalaha isqurxinta dabiiciga aan soo isticmaalno oo kaa dhigayo xural caynti dunida marka maxaan ku shubtay hal qaando oo ah shumburo qaandada halfkeed oo mint leaf ah ayaan weel ku shubtay kadibna waa isku qasaaya waa isa soo dhexgelinaya wixii kuuskuus ay leedahay kale ayaan ka jibinaya markii aan si fiican isku dhexgeliyo oo aan wixii kuuskuus aan ku arko ama yacni aan ka wada saaro oo aan daqiiq ka dhigo si fiican aan ugu jibiyo kadib ayaan waxaan ku darsanayaa aloe verada marka maxaa idin leeyahay asxaabay alaabtan bal soo tijaabiya aniga waan ka helay wayna i anfacday yaa maasha allah aad iyo aad ay u wanaagsan tahay yacni waa wax aadan ka helaynin kareem gasac ku jiro iyo kiimika waa wax dabiici kaliya waxay u baahan tahay dulqaad iyo samir waxyaalaha markay dabiici yihiin waxay u baahan yihiin dulqaad iyo samir aloe vera ayaan ku darsaday oo hal macalga oo buuxda oo aloe vera ah ayaan ku darsaday marka markay dabiici yihiin maxay u baahan yihiin dulqaad iyo samir ayaan ku dhihi lahaa aniga adaa ka qurux badnaanayo gabar iscadaysay kiimika marsatay beri weji ka madoobaatay sanka ka madow haar gashay gaduudatay hurtay adiga si dabiiciya midabkaada midab qurux badan haddii aad cadayd haddii aad madoobayd haddii aad maariin ahayd quruxna maba ahaba cadaanta qurux ma ahan quruxda waa qofka inuu midabkiisu isku egyahay laakiin qof gaduudan oo daanka gaduudan ama ka madow yousan ku dhihin anaa kaa qurxan iyo anaa kaa cad qofkii isku eg ayaa quruxa oo ilaahi subxaana watacaala lixdiisa lixaad oo u dhammaystira alaabteena markaa isku soo qasanay sidaas ayuu kusoo baxday intaas uga baxna maxuu ahayd dad baraarujinta gabdhaha mar walba wixii la abaa wax ma tarayso alaabtan gabdhaha iscadeeyo kaliya ayay wax u taraysaa qof oo kiimika marsado war waxaas waa laga tagay waxaasi may ahaayeenoo laga tagay waxaas waa laga tagay jikada ayaa loo noqday hadda adduunkii muxuu u batay saaluuna tagaysaa oo kaleento ama meel dadka lagu qurxiyo kale tagaysaa waxaa leedahay wajiga iyo dhaqa lugaha iyo dhaqa gacmaha iyo dhaqa maxaa lagu dhaqaa adduunka wuu nacay kiimika wax dabiiciya lagu dhaqaa wixii gurigaada yaala bariiso timirow huruudow maxaa la dhahay niini wax kasta mint shumburo wax kasta lagu sameynaya oo markaas oo ah dabiici
ama caana lagu qasaya ama rose water lagu qasaya ama biya lagu qasaya ama aloe vera lagu qasaya adiga dhanna waxa laga soo saarahan ku dhahay xural caynta dunida adoo lagu isticmaalay wax dabiici marka maxaa dhihi lahay gabdhaha haartan ee ku badan tahay caba biyo badan waxyaalaha cagaarka shiita ee cuna wajigaada iyo korkaadna waxa noqonaysa qof iftiimaayo kor wax laga mari wax mataraan ee wax la cunayna way ka qayb qaataa ayadan gacantaydan soo mari sida u jeedeen wajigayga ayaa marsaday marka hadda intaas iyo sidaas ay ugu soo baxday intaas ayaa ii soo hartay intaana maxaan suubinayaa waay inta markii aan wajiga ka marsaday oo kale intii ii soo hartay waan kaydsanayaa talaajada ayaan gashanayaa ama firinjeerka sida u taqaanin siya mar ama laba mar oo kaleento oo u isticmaal alaabtan wajigaada waxa ku haynaysaa 30 daqiiqo 20 daqiiqo hadii aad ku haystid marka banaanka u bixirtid oo kaleento dhac aad ku siistid ku dhaha hadda waa scrub dabiiciya ya waxaana ka dhigaya qurux dhalaal iftiin jirkaada wixii wasaq ku jir dhan oo ka qaadaya dulduleelada wajiga ayuu furaya wixii saliid iyo wasaq iyo oil ku jir dhan banaanka ayuu soo bixinaya hada wajigaada excess oil aalaheeday oilka dhan uu ka soo saaraya ee ku dadaalaya aad dhihi lahay scrub dabiiciya sida u noqotid gabar dabiiciya sida u noqotid qof ma sha Allah mar walba isku bogo sababtoo ah qofka markuu muxuu ahayd kiimika marsado oo miraayad isku fiiriyo muxuu is arkaa asigoo yaani geeska gaduutay ama ka madoobaaday ama xididdo ee ka soo baxeen ama wajiga dhanba uu ka noqdaba sida ninkii oo kale gar ka soo wada baxay marka maxay leeyahay alaabta isku qaqabta midab yar oo qurux badan oo dabiici ayaa yeelanaysa waxaan noqonaysaa gabadha ugu shidan magaaladiina xaafadiina saasan ku dhigay aniga hadda waxay leeyihiin gabdhiye maxaad abaa alaabtan wax ma tareyso gabar is cadeey bas ay u tareysaa qof kasta u tareysaa midii is cadeysay bal adigana marso sababtoo ah fitamiiniski iyo wixii faa'iidooyinka wajigaada uu haystay waa iska dishay oo waxa gelisay kiimiko laakiin alaabta markii aad marsid waxa ka helaysaa waxyaalihii uu ka dilay fitamiinada uu ka dilay ayuu ku soo celinayaa qayb kamida ayuu ku siinayaa marka maxaan ku dhihi lahaa adigana marso hadii aadan kiimika marsanna ha u shalaynin wax wanaagsan ma aha wax quruxsan ma aha yaani wax qarashka galay adiga dhan aan ku qurxinin jirooyin laga helay qarashkii aa ka baxin bari aa u shalaynaysid waay marka maxaa id leeyahay insha Allah alaabtan isku qabta scrubkan oo qurux idinka dhigaayo dabiicina idinka dhigaayo biidnillaahi alkariim hadii aan taa markuu horeysa aan soo booqad janka ku subscribe dheh hadii aad tahay gabdhihii ka faa'iideysto hore u joogi jirna maxaa id leeyahay si share gareeyo meel walba ugu geey gabdhaha si ay uga faa'iideystaan wali may arkin ha arkaano adiga u noqo sabab gabartaas si uga faa'iideysto channelka insha Allah maxaan inoo balan ah inaan ahaano qof dabiici ahaano gabar dabiici ahaano qof ishuba insha Allah oo isku kalsoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.